عليكم ورحمة الله وبركاته. نبض داوديال meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena oo doonayna inaan waraysi kula yeelano taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saaxil Cabdiraxmaan Ibraahim Maxamuud anagoo xilligan ku sugan saldhigga dhexe ee magaalada Berbera. waraysigaasi oo doonayna inaan ku soo qaadano dhinacyo kala duwan oo ciidanka booliska sida arrimaha galida bulsho iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqa booliska ee gobolka Saaxil. taliye marka hore waxa ku diin lahayn bal guud ahaan xaaladda guud ee nabadgelyo ee gobolka Saaxil iyo waqtigan sida ay tahay. bismillaahir rahmaanir rahiim. nabadgelyada guud ee gobolkan Saaxil ilaahay baa mahadleh aad iyo aad bay u fiican tahay wax rabbi loogu mahadnaqa ayaa yaala inkastay xagaa tahay kuleylkuna aad u badan yahay muxuu ahaayay laakiin guud ahaan marka gobolka loo kaco xagga nabadgelyadiisa guud aad iyo aad bay u fiican tahay. taliye xilligan oo kale waxaynu ku jiraa xilligii runtii xagaaga oo ay magaalada dabaylo badan ay ka dhacaan tuugtuna ay ku soo habar wacto Berbera waqtigan oo kale iyo ka faa'iideysanaysan qaraha dabaysha xoog badan tuugta sida ka tihiin xilligan ee magaalada ka hor tuugtu waana joogaan laakiin tuug sida la fajab uga geysatay gobolkana ma jirto meelo waaweyn oo ay jabsadeen ma jirto waxa yar yar ay meelaha ka halqafaana waa la qabtaa oo markiiba waa laga daba tagaa gudaha la dhigaa. هذا الشيء dadku waxay yiraahdaan tuuju xilliga waa badan tahay sababtuna waxa weeye xabsiyada laga soo daayay fikradda aad u maamsan tahay taliye way jirtaa waa ticla cafiye waa tii la soo daayay ase yeeshee biliiska caado waxa isaga ah inay dib u ururiyaan tuugta marka waagi bariye gobolkii dhaca waa la ururiyaa waana la xidhaa marka sidooda isaga yaraan doonaan insha Allah. burcadbadeed baa iyana jirtay oo dhawaan waxaa jirtay in ay niman burcadbadeed la soo qabtay iyadoo horena ay jiilasha qaar ugu jireen balku ugu dambeeyay nooga war way jirtay biyaheena ahaynee ayaa markab ruush oo markab dagaalihi ku qabtay burcadbadeed niman lagu sheegay kadibna 10 baa lagu sheegay 10kii 3 inay badii ku dhimatay waa la sheegay 7dii kale ay keeneen gobolkan kabacdina naga rogay ilaahay weynu diidnay waxaanu niri maadaaba degaankoodu Soomaalida kale yahay geeyay Soomaalida kale anaguna inay ka dejin mayno kabacdi saasuu ku boqolay markabkii markuu ceeldaraad soonkeeda marayo oo xeebtan xagga barigayna ka xigtay ayuu dejiyay badii dhigay nimankii burcadbadeed ahaa 7dii nin iyana way soo caariyeen waxay soo galeen ceeldaraad ceeldaraadna waa qabteen annana halkii baan ugu tagnay biliis ahaan bartii baan ka soo qabanay waa kuwana waa xiran yihiin maxkamadda iyo jeelkana saal isu dhaafinaya waa sidaa weey waxaan ku weydiin lahaa nimankani maadaama ay sidii burcadbadeed hore ahayn kuwa soo ataagay ama weerar ku soo qaaday biyaha badayna ee badooy maraakiib ka soo qabsatay kuwii hore maladmi miyay noqonaya wuxuu ficindulku maxalaal baa iyo xuskiisaba xun buu yiri mar hadduu burcadbadeed yahay meel uu u wanaagsan yahay ma jirto caalamka oo dhan bulid ku yahay qof kasta halku joogaa bulid kaga yahay waana isku dambi mar hadduu burcad noqday oo waa sharcigu ma laga waafajin doona kuwa dhintay maxaa la kuwa dhintay iyagu sidii sheegayaan bahalaha iska cunay oo badda markii ay qarxameen oo markabkii laga jiiray ayaa bahala dileen bay leeyihiin saasay ku dhintay meel marka aad eegto guud ahaan taliye xaaladda nabadgelyo amaba matalan xilligan oo kale oo kuleelihii iyo xaag jiro wax booliska carqalad ku ah dhibaato oo haba yaraatay haysta horta ma jira biliiska marnaba adduunka dawladaha waaweyn baan isku dhamaasho siday u helaan ay adag tahay innagoo yar oo curdinana waaba ogtihiin awoodda kaaniyaadka biliisku ku shaqeynayo haday gaadiid tahay iyo haday qalab tahay iyo haday awood tahay mid waliba waa istaakul hortaagan weey laakiin nasiib wanaag waxaanu nahay dal wanaagsan oo dadkiisu aad u fiican yahay oo meel walba dadkeedu ammaankeeda iyo nabadgelyada dadkeedu ka shaqeynayo sidaasaanu markaa anaguna kaalmada ku helaynaa heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmo iyo deegaanada kale ee gobolka ku xeeran dhammaan sidaas insha Allah dadkeedu u fiican yahay laakiin dhibaatooyin waa jiraan waa tahay dhibaatooyin waa jira waa laga gudbi doonaa laakiin ma ku tala jirtaan maskaxda ku jiro oo hiwaayadiinu ay tahay oo ku hamiyeysan ma jiraan shay kale
واجرانو وحوي حاجة ود جديد إن شاء الله تعالى إنه بانو حاجة سريع يهير قبل بوجودنا سيدي لوهلي لها إسكارسينتا إمك حيابها دار وكله وح إسكارسينة وموبل كاكاغوايا وحلو بهاي أمتريوين وحلو بهاي جديد دار إسرعصن أو حيابها كجدبا أو صعدا إن شاء الله تعالى وسوينا كانيات كاوحي دمنا أن أدو فكرين. قبل كان مركا أدركتو. ودب عند وجهي ذكر دوان ولا كقال ساعة شيء سو إسكارسين ملح. إما كجنب بحي ملها كلا كسر شيء حب بري أفق يوم ملا بدنا كرا قرفاه بوجهه. إن عند رئيس إنفورميشن هشانا وبوليس لو كان صوروا هشانا لو كان وروا أنو كهلا أنت بدن وحيا الله بحاله تارك يهريا الله. كوا صورك الناس وجديان وكهلا. لكن وحلو بهاي كل قلب كعصرها أنت مبلد وجاريان. أنت ريوينا إنه هلابان وبالوح بدن ضرب وسمين دونا جديد كذا ديرية عاد السرعة عصنا وسمين دونا وركنا تارك عشان كهلا هذا يدنا واحد. هذا ورك عشان جودهان قبل كه أو لن ما نبض غبا وحسة شيء كريسان أو دي بهاي بتشيله. تفرت جودهان قبل كواني ظهري لي شو قبل كواني بتقلي قبا دل الواد عايم كدل كمية بيه وحكر عايم لا سعيد له ميل 6 كيلومتر كشيسا أيام نيل جودلي حد يرنا عيدا كي بليسكا أو إلا تلي حجين كقيبته وطاوه حكم غيهاي صون كبريجو كتيرها إلا جعان كدقلي هرول بوجلي واسك جرنا يساعدوا وحويه حاجة جديدة محا هاي ددوينها وذا شقين تيسو كوا ددوينها لهذيك سنة كوا بليسكا لهذيك سنة كوا وسيردها لهذيك سنة إما كبت عيدا كبت قاربا نوغم غنو عيدا كوا طادو هذا بريك تيره إن شاء الله تعالى أنت بليسكو هيرسكو في الله شجاري ددوينها نلصق عشان إنه وسيردها ودبيت تلي واحد كودين لها إن واحد فرينا هو الشعب يجود بين يسوي كيف يستوى فرصة جرحنا كوا قبل كساحي مشرع عاديات بوشرة نصيب وناج ورضي إن الصحافة عاديات بانو سلامية عاديات بانو كم هاد علينا سيدا وناج سن هدية شيرالي بالشدة إسكارسين تيدا أرماء وعجلين تعوضان عاد بانيني سلامية هير قبل هير دجمو أنا عاديات بانو سلامينا سيدا نورا شغينا يعني سيدا شقدو ودا صعطي بالشدو ودا صعونيسو عاديات بالله ودا شغينا ويوناكسيين waxaan sii gudbinaynaa oo gaarsiinaynaa farkaliya fool ma dhaqdo inta yare biliisku kuma filla dadweynaha waxaan leenahay adinkoo awalba dadaalayay oo u joogtaan anba faydnaya waxba hay farin waxaan aad uga sii codsanaynaa inay orodka sii kordhiyaan oo ilaa xeebta dheer ama galbeed ha loo kaco ama bari ha loo kaco ama tooskeena ha noqotay wixii dalkeena hungureynaya kuwa badda gelaya ama kalluumaysi ha noqoto ama dad bari degan ha noqoto waxaan dadweynaha faraynaa oo ka codsanaynaa oo u sheegaynaa inay dalka nala ilaaliyaan waxaan kaloo leenahay bulsho weynta tuugta hadday qarsadaan haddii daalimiinta kale ay qarsadaan guryaha la kireysanayo waxa la wada dadweynaha hudheelada la gelayo waxa la wada dadweynaha muxuu ahaaye maqaaxida laga shaahayo waxa la dadweynaha gaadiidka la kireysanayo waxa la dadweynaha waxaan leenahay dadweynuhu dalkina la ilaaliyo oo wixii inii soo galaa adinka markiiba helayay anana toos noo soo gaarsiiyay insha Allah taala si aynu heer u gaarno himiladeena aqoonsineed dawlad ahaan adkaysigeena si aynu uga midho dhalino aan amniga aan adkayno oo ka wada shaqeyno insha Allah taala وهذا كاس waxaa taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saaxil Cabdiraxmaan Ibraahim Maxamuud oo wareysi la yeelanay isagoo oo ku sugan xilligaasi saldhigga dhexe ee booliska ee magaalada Berbera barnaamijkan barnaamij la mid ah intaanu ku kulmayno waaniga iyo filan qaadistii Muxtaar Cabdiraxmaan Maxamuud oo ilaa sida iyo nabadgeliyo iyo amaan Allah